مسؤولينta kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay dhamaantii waxaad ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kullee wasiirka dhameeyay muhiimadda kulankan aynu isugu nimid iyo waxyaabaha uu daaran yahay xubin anagu ugu muhiimsan qaybtan ka soo galay governance oo ahaa shaqaalaha dawladda waxyaabaha ay u baahan yihiin halkay taagan yihiin waxyaabaha aynu rajeynaa 5 sano soo socotay inaynu gaadhno runtii qayb aad u weyn ka noqon doonto horumarkaynu dhammaan higsanayno sidaynu ognahay wax walbo safar ku jiray wuxuu u baahay qolof sare iyo meel uu gaadhayo iyo mishiin gaadhsiinaya meesha uu doonayo dhammaan dawladnimada quruxda badan iyo guulaha tirabeelkeenu rajaynaynay waxa sal iyo buddigu ah shaqaale wanaagsan oo riyada aynu ku riyoonay ee Soomaaliland qurux badan gaadhsiin kara waxa rajaynayaa intaanu kulankan ku jirno iyo guud ahaanba diyaarinta qorshaha 5 sano aynu ka hawlgalayno in dardargelinta iyo diyaarinta kor u qaadida tayada iyo tababarka shaqaalaha dawladdu qayb weyn ka noqoto si aynu kulamada dambe isugu nimaadno Soomaaliland ka qurux badan halka aynu maanta taaganayno higsanayno waxa rajaynayaa kulan midho dhala isla markaana la isku dardaro talooyin aynu ku jaangoynayno safarka aynu doonayno inaynu u galno Soomaaliland qurux badan waxa dhamaantii tihiin sahamiyayaashii Soomaaliland reerka marka la raray sahan baa lagu raraa inteena maanta halkan fadhida sahan baynu u nahay ceelaaliyo 5 sano soo socota Soomaaliland halkay u safraysaa waxay doonaysaa inay guul gaadho maxaa intii hore gaabis ku dhacay qorshayaashii aynu hore u lahayn maxaa gudoloolaya gaabis ka yimid maxaynu kabnaa maxaynu kaarnaa maxaynu kor u sii wadnaa waxaan rajaynayaa inaad noqotaan sahamiyayaal iyo ceelaaliyo wanaagsan oo intiinana maanta waxaad u fadhidaan inaad Soomaaliland meeshii higsanaysa aad u jaangoysaan dariiq fiican aad marsan waxaan ku amaanayaa ugu mahad celinaya uguna hambalyeynaya wasaaradda qorsheynta agaasimaha qorsheynta iyo wasiirka iyo dhammaanba maamulkiisa oo runtii 5 sano hore inagu daadihiyay meel wanaagsan 5 sano u diyaarsan oo u dabran inay sahanka Soomaaliland ay ugu jirto guul iyo gobonimo inay buddigu noqdaan dadaalka dheer ee joogtada ah iyo kulamada aan tirada badan ee hawlahan u qabanayna waan uga hambalyeynaa waan uga mahad celinayaa wasiirku sidoo uu hor socdo iyo maamulka isku duuban ee dhamaantood ku hamiyay inaynu Soomaaliland qurux badan aynu gaadhno waan uga hambalyeynaa idinkana waxaan idinku dardaaraya ama idinku boorinaa ama idinku xoojinaya kulamada noocan oo kala maaha kuwa sahlan maaha kuwa aynu ku qorsheynayna maalin iyo labo waa 5 sano Soomaaliland sidee way kaanaysi contribution keen raay ku darsigeena ka goonaanteena iyo inaynu indhaha ku hayno Soomaaliland maanta inaynu qorsheynaynay waa wax weyn dareenka aynu ku joogno aynu dareenka kaga qayb galno waqtiga ku ilaalino isla markaana niyeysano inuu daldani dushiina saaran yahay oo qorsheyn fog oo dhamaanteen nooga baahay waad maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi